kulankan oo u badnaa su'aal weydiin la xiriirtay mooshinka laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaa xubnihii ka qayb galay intooda badanna ka tirsan gudiyada joogtada ah ee golaha shacabka ay sheegeen in sax ahaanta mooshinkaasi iyo inaanu sax ahaynba uu cadeeyay gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muudey kaasi oo ay tilmaameen in 14 bishan uu qiray in mooshinkaasi uu burburay qaar kamid ah xildhibaanadani oo siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka ayaa mid kasta oo kamid ah uu carabka ku adkeeyay in mudane muudey uu madal loo dhan yahay ka sheegay in mooshinkaasi uusan sax ahayn isla markaasna uu burburay sida ay hadalka u dhigeen waxaan masalayay gudoomiyaha guddiga 14 bisha maaris 2018 maalinta arbacada ahayd waa fadhiyay hadalkii wax badan ku noqon maayo laakiin ilaahay hortiis barqaati waxaan ka ahay saddexda gudoomiye markay soo noqdeen oo shirkoodii soo dhameysteen ayaga oo raalli ah oo isku raacsan oo marka ugu horeysa uu gudoomiyuhu hadalka bilaabay gudoomiye jawaari ka bacdina lagu wareejiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh muudey in ay ku heshiiyeen heshiisiya waa ku yimaadeen inaan kooramkii loogu talagalay mooshinka dhammaystirayn sidaa darteed mooshinkaasi inuu buray markhaati ilaahay baan ka ahay min muslimaan ahay shantiisa waqti tukada shahaado suur ma gelahayo waxaan rabaa inaan idiin sheego oo ku celinayaa mar kale waa dhammaaday waqtigii qof jacaylka iyo qabiil jacaylku waxaa la gaaray waqtigii qaran jacaylka aragnay dhibaatada uu noo geystay waxa ugu horeeyay gudoomiye muudey wuxuu yiri waxa ilaahay ugu og yahay ayaan idin sheegayaa buu yiri inaan 107 ay ahaayeen aan isla tirinay 17 ayaa ka noqotay laakiin 16 ayaa waxay noqdeen magacyadii la helay hal qofna lama helin sida la adligeed buu yiri 91 bay noqotay marka ma soconayo mooshinkaas geesay gudoomiye geesay baa weydiiyay marka ma hadalkii isagoo ku jira ayuu weydiiyay wuxuu yiri ma waxa leedihiin mooshinkaas ma jiro haddana gudoomiye muudey baa ku soo noqday wuxuu yiri ha waxa mooshinkaas waa dhamaatay dad badan baa su'aal weydiiyay odaygana kamid ah dadka su'aasha weydiiyay oo ugu dambeeyay yiri muxuu ahaa bar arinta maxaad leedihiin yani mooshinkii waajib ma leedihiin ha waajib buu yiri muudey asaga afkiis ku dhawaaqay qoladii minadka qorayna way joogan muxuu ahaa annagana waa joognay ilaahay hortiis marka meeshaas waxaan kaga tagnay in mooshinkii la keenay uu sifa sharciyeed noqon waayay uu geli waayay ajandihii baarlamaanka isla kulankan gaarka ah oo ku qabsoomay Villa Hargeysa waxay xildhibaanadu isla garteen in xalinta arintan guddi loo saaro waxaana 25 ilaa 26 xubno ka kooban loo doortay inay la kulmaan xildhibaanada mooshinka keenay iyo gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka xildhibaan maxamed cumar carte oo shirkan loogu doortay inuu gudoomiye u noqdo guddiga xal raadinta iyo dhexdhexaadinta mooshinka waxa uu sharaxaad badan ka bixiyay shirkani waxa soo baxay in ayagoo gudoonku wada dhan oo jooga inay ku dhawaaqeen oo yiraahdeen mooshinkaas uu jaban yahay saasaa nooga soo baxday warbixintii maanta oo ahaa qodobka ugu horeeyay qodobka labaad waxa weeyaan in la doortay guddi 25 oo iyaguna markaa iyo guddi ananu ku jiro marka ay noqonayso in laga hawlgalo sidii loola kulmi lahaa hadday tahay gudoonka hadday tahay madaxweynaha hadday tahay maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaaraha haddii ay tahay xubnihii kale ee mooshinka waday iyaga laftooda hadday tahay intaba in lala kulmo la isku dayo in markaa la ilaaliyo haykalka iyo sharafta golaha shacabka in la ilaaliyo taas ayaa muhiimadda ugu weyn ama qodobka labaad ee maanta soo baxay inkasta oo xildhibaanadii hadlay dhammaantoodba ay sheegeen in mudane muudey uu isagu qiray in mooshinkaasi uu burburay haddana isla 14 bishan xilli habeen ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxa uu shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in mooshinka uu sax yahay isla markaasna la qabtay oo hawshiisa la galayo si kastaba inkastoo madashan ay xildhibaanadu ku sugnaayeen haddana ma aysan joogin gudoomiyaha baarlamaanka ee mooshinka uu ka yaalo iyo sidoo kale labadiisa ku xigeen Nasr